sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay wan heesayaaye sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqon loo hawayay kii noo hagaagee noqon loo hawayay kii noo hagaagee noqon loo hanwayay noqon loo hanwayay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض وضيال دمانتين به ملك السوا جوكتان كسور وهذا برامج قارة واردو كسور قد بنتهن قار كميدا dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhamaaday ee 2018 ka dhacay dalka barnaamijka daawadayaal waxa uu qayb ka ahaan doonaa barnaamijyo dhowr ah oo aan ku soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018 ka dhacay dalka gudihiisa iyo caalamkaba sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay wan heesayaaye sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqon loo hawayay kii noo hagaagee noqon loo hawayay kii noo hagaagee noqon loo hanwayay noqon loo hanwayay lixdii bishii koowaad ee January iyadoo madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku guda jiray waqtigaasi bishii koowaad ee uu bilaabay howlaha xafiiska shaqo ee madaxweynenimada ayaa waxa uu safarkiisii koowaad ee uu dalka dibadda ugaga baxay uu u doortay inuu ku tago Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo oo dalka Djibouti ay tahay dal ay xidhiidh walaaltinimo dhaqan dhaqaale uu kala dhaxeeyo Somaliland iyadoo oo markaasina casuumadihii soo gaadhay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo markaasi loo cumaamaday xilka madaxweynenimada uu isagu doortay in casuumada uu ka helay madaxweynaha dhigiisa ee wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele inay noqoto casuumada ugu horeysa ee uu aqbalay in uu ka jawaabo safarkii uu waqtigaasi ku tagay 6 January madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalka Djibouti oo si diiran markaasi loogu soo dhaweeyay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisii markaasi wehelinayay waxa ku qaabilay madaarka caalamiga ah ee dalka Djibouti gaar ahaan qaybta maamuuska sare madaxda ugu sareysa ee wadanka Djibouti si wanaagsan ayaa noo soo dhaweeyay aad iyo aad u qiimo badan aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shacabkaba sidii wanaagsan milgada lahayd ee noo qaabilay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxay dhacday cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii hore mudane madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland booqashada uu ku yimid Djibouti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ay isku qabaan iyo kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysay ee dibadda ugu baxay oo Djibouti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa baddaan wadaagnaa
iyo dhulkaba dee ganacsiga haddii laga hadlo xuduudan sidii maaragtay si fiican la isku furi lahaa iyo dadweynaha labada dadweynihiisii sidii dee maaragtay uga tallaabi lahaa xuduudana waa laga wada xaajooday iskaashiga nabadda iyo nabad sugintana labada dal waa iskaashi loo baahan yahay la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisaduga taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqir ay geliyaan mowduucyaal kaloo ama arrimo kaloo fara badan ayaan iminka guddiyaashii loo soo saaray ayaa wada fadhiisan doona guddiyaashaasina in baa sii jirayay kuwa jadiidana waa la asaasay waa la abuuray guddiyaashaasina iminkay maaragtay fadhiyaashoodii qabsan doonaan sidaan u arkayo mustaqbalka maaragtay iskaashiga iyo xidhiidhka labada dal aad buu fiican yahay 8 bishii koowaad ee January ee sanadkan sii galbanaya ee 2018 ciidamada qaranka Somaliland ayaa ku ruqaansaday aaga degmada Tukaraq halkaas oo dagaal qaraari uu ku dhexmaray xilligaasi ciidamada maamulka Puntland oo halkaasi iyagu ku sugnaa ciidamada qaranka ayaa halkaasi markii ay gaadheen dadka deegaanka Tukaraq ay si weyn u soo dhaweeyeen dagaalkaasi qaraari iyo la wareegista ay ciidanka qaranku la wareegeen deegaanka Tukaraq waxaa ka hadashay xukuumadda Somaliland wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ahna afayeenka xukuumadda ayaa maalintaasi shir jaraa'id oo qabtay waxa uu kaga hadlay in talaabadaasi ay sabab u ahayd daandaansi ay waday xukuumadda Soomaaliya oo dibadda ka riixaysay falal amni darro oo ka dhacay gobolka Sool ciidamada qarankuna iyaga oo ka jawaabaya ay talaabadaasi la wareegista Tukaraq ay qaadeen waxa uu sheegay in xuduudda Somaliland ay ka harsan tahay in ka badan 70 kilomitir waa kan wasiir Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo warbaahinta la hadlayay maalintii dagaalkaasi dhacay waxaan u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Somaliland in uu heegan yahay hadii rabadaan lagu jiro hadii iid lagu jiro hadii dhibaato kala dhacdona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaanu Somaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo ku wada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Somaliland ma u adkaysan doonaan oo mana dul qaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dawladda Soomaaliya xuduudaha Somaliland toddobaad kadib markii ciidamada qaranku ay la wareegeen maamulka deegaanka Tukaraq waxa waqtigaasi jiido hore ee Tukaraq gaadhay wafdi balaaran oo hogaaminayay waqtigaasi madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici salaan diiran oo cutub ka tirsan ciidanka qaranku ay wafdiga madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ay ciidanka qaranku siiyeen madaxda kala duwan ama taliyaasha kala duwan ee ciidamada qaranka ayaa uga waramay sida ay wax dhaceen iyo waliba xaaladda deegaanka dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ku hambaliyay talaabadaasi ay qaadeen ciidanka qaranku isagoo oo sheegay in xukuumaddu ay ku hanweyn tahay ciidanka qaranku talaabada ay qaadeen mudane madaxweyne ku-xigeen ku soo dhawow cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jiidda hore Jamhuuriyadda Somaliland oo salaantaada iyo soo dhawayntaada diyaar u ah aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya ciidamada khaasatan xasiloonida iyo deegaankaanu soo maray oo meel kasta calanka lala taagan yahay oo dadku macnaha banaanka taagan yahay oo u diyaar yahay macnaha ay ka muuqato kasbashada iyo soo dhawaynta iyo bogaadinta ay u oomanaayeen in qarankoodu ku soo fido oo deegaanka maamulku soo gaaro hadalka inta nuxurkiisa waxay ka dambeynaya madaxweyne ku-xigeenka aan ku soo dhawaynay Cabdiraxmaan Suudow bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah ilaahay baa mahadle maanta halkan la soo gaarsiiyay marka hore ma hadda ilaahay ku soo waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Somaliland
oo runtii hawl adag ku jira waajib dastuuriyan halkan maanta u jooga dhulkii Somaliland oo xuduud ka dhaweyn ana jooga maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii hawsha adag ee qabteen ama u joogaan mar walba ay u heeganka ugu yihiin difaaca qaranka waxaan maanta idinku nimidnay halka u soo joogsanay colaad maaha waxaan u nimidnay idin mahadnaqno oo idin baarigno waxa kale oo nimidnay inaad idinku waarino ama idinku boorino inaad ummadda aad mar walba aad la joogtaan oo mar walba aan ogahay akhlaaqada iyo dhaqanka ciidanka Somaliland maanta muddada uu jiray sida uu soo karaameeyo shacabkiisa iyo dadkiisa u karaameeyo inaad dadka aad dhowrtaan oo dhaqdaan oo caawisaan waajibkiina aad idinku fushanaya wax daandaasida ku yimaada mooyaane inaad maartay saala sheegay xuduudda inta inoo ka dhiman dalkeena waxaynu uga joognaa inagoo dhowrayna in dhibaato halka ka sii dhacdo in magaalooyin maanta degan oo maartay walaalina Soomaaliyeed jaarka nahay inay dhibaato ku timaado ayna jecelayn dhanka doontaba haatee inaan macnii wax talaabo taan isku ognahay oo ah difaaca halka joogtaan maahina ka baxsaneedaan ku talaabsan ma ku nimidnay aad iyo aad noo ku hambalina runtii shaqada balaanada haysan jaranka iyo saaxiibadiisa kale maartay garbaha ah iyo dhammaan min taliye ilaa iyo maartay askariga hooseeya runtii waana mar walba waxaan ku majeeranaa ummadda reer Somaliland hadaan madaxdiinahay hadalka naga soo noqonaya shacabka mar walba waqtiga waxaan garanayaa xukunkeega cusbaa oo maartay maamul fulinta ay socotay oo markuu ciidanku meel soo gaadho dadku u arkayay dad bahal oo aad u qayli jireen laakiin waxay kadib markay ogaadaan dhaqankooda iyo soo dhaweyntooda iyo inaan wax dhib ah ku sameynaynin marka dambe ay jeclaadaanoo maanta meel kastoo degan yihiin ay Somaliland ka degan yihiin aad shacabku soo dhaweeyo oo ogaadeen in qaranka ciidamada qaranka Somaliland ay ciidamo aad u degan oo akhlaaqad leh oo dhaqankii ciidamada wanaagsan lagu yaqaanay ee ah taakuleynta shacabka maartay tabacsan la shaqeeya oo iyaga wax u tara ee aan ku biirin dhibaato inay yihiin iyaan lagu ognahay taana aad baan ku mahadnaqaynaa 16 isla bisha koowaad ee January madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wadanka Itoobiya uga ambabaxay safarkiisii labaad ee uu dalka dibadda ugaga baxay tan iyo intii xukunka loo doortay Itoobiya ayaa ah wadan saaxiibtinimo iyo waliba iskaashi dhinacyo kala duwan sida ammaanka dhaqaalaha iyo sidoo kale isu socodka uu kala dhaxeeyo Somaliland ayaa u soo fidisay madaxweynaha casuumad waxa madaxweynaha Somaliland iyo waliba wafdigii markaasi la socday madaarka caalamiga ah ee Addis Ababa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda Itoobiya wariyahayaga Axmed Saki Daahir Xasan oo warbaahinta qaranka uu la socday wafdiga madaxweynaha ayaa sidan uga soo warramay soo dhaweyntii iyo waliba qaabilaadii madaxweynuhu uu ka helay mas'uuliyiinta Itoobiya waftigan miisaanka cusla ee uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo martiqaad rasmi ah ka helay dawladda federaalka Itoobiya ayaa ka soo degay gagada diyaaradaha ee Polo International airport ee caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa waxa si diiran oo kaliya laba aadna u luxdan meeqaamkeeduna sarreysa ugu soo dhaweeyay kuna qaabilay waftiga uu horkacay madaxweynaha Somaliland madaarka Addis Ababa wasiirka wasaaradda dibadda ee dalka Itoobiya oo weheliyo wasiirka gaadiidka ee dawladda Itoobiya iyo mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah dawladda dhexe ee Itoobiya waxa sidoo kale door weyn ka ciyaaray soo dhaweynta loo sameeyay waftiga madaxweynaha Somaliland ee dalka Itoobiya safarada ay Somaliland ku leedahay dalka Itoobiya mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Somaliland markii uu ka soo degay diyaaradda sida isaga iyo waftigiisa waxa loo dhigay roog gacas ee astaanta u ah laguna maamuuso madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxda kale ee soo booqata dalka Itoobiya soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay waftigan uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka turjumaysa sida ay dawladda federaalka Itoobiya ay u danaynayso dardargelinta iyo xoojinta cilaaqaadka cudurna u dhaxeeya labada wadan isla markaana la iskaga kaashan lahaa waxyaabaha aasaaska u ah ama
daruuriga u ah labada dhinac. Madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu waxay qadar nasasho ay ku qaateen qaybta VIP-da ama marti sharafta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo ka hadlay madaarka gudihiisa ayaa waxa ay tilmaameen muhiimadda ay leedahay xiriirka labada wadan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland waxaana uu ka warramay cilaaqaadka u dhaxeeya wadamada Somaliland iyo Itoobiya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayay waxa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ay ka wada hadleen intii uu kulankaasi u socday sidii la iskaga kaashan lahaa korna loogu qaadi lahaa arrimaha adkeynta ammaanka ama nabadgelyada, kor u qaadista dhaqaalaha, ganacsiga, la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda, xoojinta daris wanaagga, ka hortagidda wax kasta oo carqaladayn kara cilaaqaadka muddada dheer ay wada lahaayeen wadamada Somaliland iyo Itoobiya. waxaa kaloo kulankaasi laga wada hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha ganacsiga iyo baayac mushtarka iyo qodobo kale oo dan u ah Somaliland iyo Itoobiya. markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa cilaaqaadka ay wada leeyihiin labada wadan, la iskaga kaashan lahaana arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba qodobo kale. We have discussed several issues about security, economical development cooperation of our countries, political issues on the Horn of Africa, especially between our two countries, and we are very thankful for his welcome and cooperation with our two nations. ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ay ka wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa qodobada muhiimka u ah labada wadan, gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, ilaalinta xuduudaha, kor u qaadista dhaqaalaha, ganacsiga iyo baayac mushtarka. We discussed on issues of security because we believe that Ethiopia's security is security for Somaliland, and Somaliland's security similarly is that of Ethiopia. waxaana uu ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya uu soo qaatay maalgashiga marsada caalamiga ee Berbera oo uu sheegay inay muhiim u tahay labada wadan ee Somaliland iyo Itoobiya. Already started to work to develop Berbera corridor together with Somaliland, and we continue on with our partners to develop this corridor so that we benefit from this development in a win-win manner. waxaa kale oo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya uu sheegay sida ay muhiimka u tahay in Somaliland iyo Itoobiya ay markasta iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan nabadda iyo la dagaalanka argagixisada. Axmed Saki Daayir Xasan iyo Ibrahim Eagle, warbaahinta qaranka Somaliland, caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa. 13 Maaj ee sanadkan aynu ku guda jirno madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa safarkiisii saddexaad u doortay inuu ku tago dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo ah dal haatan iskaashi weyn oo dhinacyo kala duwan uu Somaliland kala dhaxeeyo. madaxweynuhu waxa uu ku tagay Imaaraadka Carabta casuumad uu ka helay dawladda Imaaraadka Carabta iyada oo si weyn loogu qaabilay xarunta Abu Dhabi ee Imaaradaha Carabta looga arrimiyo. madaxweynaha iyo wafdigiisu intii ay joogeen Imaaraadka Carabta waxa ay kala hadleen dawladdaasi dhinacyo kala duwan oo ay Somaliland ka codsatay dalka Imaaraadka Carabtu in uu ka taageero. waxa sidoo kale ay labada dhinac isla korfeeyeen maalgelintii uu dalka Imaaraadka Carabtu dib u casriyeynta marsada Berbera.
waa kan wariyaheena Ridwaan Caydiid oo isaguna wafdigaasi Imaaraadka Carabta tagay ee madaxweynuhu hogaaminayay inoo la socday oo inoo sifaynaya qaabkii iyo waliba sidii maamuuska sare lahayd ee loogu soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha waqtigaasi dalka Imaaraadka Carabta. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminaya markii ay soo gaadheen madaarka magaalada Abu Dhabi waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda isutaga Imaaraadka Carabta qadar nasasho ay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda ka socotay isutaga Imaaraadka Carabta ay ku wada qaateen qolka VIP-da ee madaarka iyagoo qadarkan nashashadaana ka wada hadlay isxoguraysi ku saabsan xiriirka labada dal ay leeyihiin iyo halka uu marayo. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa waxa loo galbiyay qasriga laga dejiyay magaalada Abu Dhabi ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyagoo lagu galbiyay baabuurta loogu talagalay hogaamiyaasha dunida ee soo booqda dalkan isutaga Imaaraadka Carabta. safiirka Somaliland u qaabilsan dalka isutaga Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil Cumar ayaa sharaxaad ka bixiyay socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ku soo gaadhay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo inta uu joogo kulamada uu la qaadan doono mas'uuliyiinta dalkan ka arrimisa. farxad weyn maanta noo tahay inaan ku soo dhaweyno dalka Imaaraadka magaalada madaxdiisa Abu Dhabi wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddada halkan joogaan madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa madax ka tirsan dalka Imaaraadka oo ka mid yahay Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan iyo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan cilaaqaadka ka dhaxeeya dalka Imaaraadka iyo jamhuuriyadda Somaliland waa cilaaqaad soo jireen oo taariikh fara badan leh dabcan muddada uu joogo madaxweynuhuna waxa ay madaxda labada dal ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka iyo sidii loo xoojin lahaa. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkan uu ku yimid dalka isutaga Imaaraadka Carabtu waa safarkii saddexaad ee uu dalka dibadiisa ugu soo baxo isagoo hore safarad dibadeed ugu baxay dalalka Somaliland jaarka la ah ee Djibouti iyo Ethiopia. socdaalkan madaxweynaha Somaliland ku soo gaadhay isutaga Imaaraadka Carabta waxa ku helinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Dr. Saad Al-Shire qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac horumarinta biyaha Saleebaan Cali Koore xiriirka golayaasha Maxamed Aadan dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe. markaaynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Somaliland ka dhacay ee ahaa lama ilaabaanka waxa ugu dooroon duufaantii sagar ee ku dhufatay xeebaha galbeedka Somaliland taas oo khasaare laxaad leh u geysatay Somaliland gaar ahaan deegaanada ku teedsan xeebaha. habeennimadii 19 bishii May ee sanadkan ayay duufaantaasi ku dhufatay deegaanada kala duwan ee xeebaha Somaliland gaar ahaan deegaanada galbeed ee xeebaha ah. waxa khasaarahaasi ugu weynaa in ka badan 50 qof oo ku dhintay duufaantaasi iyo waliba iyo inta badan xoolihii iyo beerihii ay dhaqanayeen dadkii ay duufaantu saamaysay. xukuumadda Somaliland oo waqtigaasi si weyn loogu amaanay sida degdega ah ay uga jawaabtay duufaantaasi ayaa waxa kamid ahaa talaabooyinkii ugu waaweynaa ee la qaaday wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo si degdeg ah dayuuradaha helikobtarada ugu dulmaray deegaanadii ay qasaaruhu ka dhacay iyada oo markaasi wafdiga madaxweyne ku-xigeenku ay qiimeyn degdeg ah ku sameeyeen duruufta meesha ka jirta iyo inta qasaaruhu leeyahay. waxa kale oo ay soo indhaynayeen baahiyaha ugu daran ee ka taagan markaasi deegaanada. warbaahinta qaranka oo iyaduna la socotay wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa noqotay midii ugu horeysay ee waqtigaasi soo tabinaysay muuqaalada iyo codadka dhiilada lahaa ee ka dhacay xeebaha galbeed ee Somaliland. waxaan u baxnay baddaan raacnay xeebta dheer baan raacnay waxaad arkaysaa dhulka inta laga bilaabay Djibouti ilaa iyo deegaanka xeebta ku dhalanay degmada Luqaya intaan dul marnay meel ka biyo yareeyay jirin biyo horta wax ku dhacay roob ay qeyr caadi ku dhacay doox iyo meel walba isku silmeen waxaan fadhiga kuwaad fadhiisanay marka degmada Luqaya magaalada madaxda degmada Luqaya wax laga sheekeyn karin runtii oo aan saadaran karin ayaan ku soo aragnay magaalo dhan oo baabaaday oo hadduu aqal ahaad sandaqada iyo hadduu ku daaraha wuxuu dhimo kala silmeen
oo taawarkii ugu weynaa oo sababta isgaarsiinta loo waayahayd oo inta meeshood aad garanaysaa xeeba oo maartay dhul hoose ah taawarkii intuu leekaad yaabtay gebiisa dhulka yaallo dadkii oo sare joogo oo meel waxay hooy haystaan aanay jirin yaan halkaa u tagnay laakiinse waxay nasiib wanaag noo sheegeen iyaga wax iyaga magaalada dhimasho inay ka dhicin waxaase dhibtay noqotay wixii xoolo agaarka magaalada yaallay ku noolaa iyo waxay agab haysteen iyo wixii maartay hooy ku noolayeen yaa burburay meeshaan iyo dad deganaan ma odhan kartid biyihii ku dhacay ee roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan baddii ay soo durkiyaan xoolo wixii ay lahaayeen oo dhan isagoo isma weydiinayeen badday ayay saa u dul sameynayeen dadkii oo markaa gacmo marana carruurtii iyo dumarkiisa ayaan halkaas ugu tagnay dabayshu waxay ku dhacday culayskeedu halkaa luqaya ka soo gashay badda iyo intaa agaarka luqaya tuulooyin ku dhow waxay ku dhufatay halkaa ay gargaaro bariyo buurta ah inta kalena waxay la qabaan biyaha iyo roobka siyaada iyo meel walba ilaa Djibouti ilaa halkaa iyo Bulaxaar ilaa iyo Berbera waxay la qabaan biyo xoolo wixii maanta Somaliland lahayd gobolada awdal iyo salal waxna daad baa qaaday waxna qaboway isku bedel qabow ku dhinteen inuu dhulku beerahay iyo in kalima lama garanayo waxa wixii la beeray iyo wax oo dhan gabiyo ka baahay sida la sheegay ilaa iyo debaki oo garanaysaa beerbiyooda saas dooxid waa jareen maanta waxa Somaliland dhaqaalihii beeruhu waa saasoo beerbiyoodkan u baabay xoolana saas u baabeen runtii ummadda islaamka iyo ummadda reer Somaliland meel joogtaba inay hawsha gacan weyn ka soo geystaan ma ku baaqayaa waxa weeyaan maanta dadka cuntada waxa kaga daran hoyga kaga daran ummadda carruurtii iyo dadka jilicsan ay haweenka iyo waxay fadhiyaan banaan bay fadhiyaan marka waxa loo baahan yahay gurmad degdega cid kastoo maanta Ilaahay wax siiyeen maartay nin jiingad u qaada nin sibir u qaada nin wax ku meel gaar oo si qaado oo maartay dharkii iyo waxay hubanayeen iyo u qaada iyo cunto intaba dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo Somaliland ay iska kaashadaan arrimaha horumarinta maalgashiga iyo kaabayaasha arrimaha bulshada ayaa laba diyaaradood oo helicopter ugu deeqday dowladda Jamhuuriyadda Somaliland si ay qayb weyn uga qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ku sugan xeebaha Somaliland ee roobabka dabaylaha wata ay saameynto kaga tageen ummadda ilaa maanta inta warka la laaba shiraysta bijooga lagu jiray hay'adii waa la mabalaskareeyay xukuumaddu waxay hayso way diyaarisay gurmadkii koowaad ee inuu yimid dibaddana waxay arkaysan kan la soo diray diyaarado dhulka go'doonsan cuntada gaarsiiya oo noo soo dirtay dowladda Imaaraadka Carabta ee saaxiibka nahay ilaa berrina diyaarad kale laba imika halkan fadhiya berrina laba kala imanaya insha Allah oo mid ay raashin sido madaxweynuhu halkan saaka soo galay waa la socotaan magaalada maan gelin halkaa joog buu yidhi wuxuu diyaariyay raashinkii la saarayeen laba diyaarado la saari lahaa marka dib baan u noqonaynaa imika intaydii ka timiday ee shalayso meesha gaadhay inaan dib aan u noqono oon bal labada meelood u darnaa waxaan gaarsiino intii uu madaxweyne ku-xigeenku ku maqnaa xaaladaasi qiimeynta ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu ku howlanaa sidii uu beesha caalamka hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah iyo dawladaha ay Somaliland xiriirka la leedahay uu u weydiin lahaa in ay gurmad degdeg ah la soo gaadhaan dadka tabaalaysan dawladihii ugu horeeyay ee markaasi jawaabta degdeg ah bixiyayna waxa ugu horeeyay dawladda Djibouti oo deeq raashin ah keentay deegaanadii dhibaatadu ka dhacday iyo waliba dawladda Imaaraadka Carabta oo markaasi gurmadkii ugu horeeyay ay keentay ahaayeen diyaaradaha helicopterska loo yaqaano oo lagu daadgureynayay deeqaha kala duwan ee la gaarsiinayo dadka tabaalaysan maadaama oo duufaantu waqtigaasi ay goysay isgaarsiintii iyo waliba wadooyinkii halbowlaha ahaa ee loo mari lahaa deegaanada ay waxyeeladu ka dhacday geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna si degdeg ah safar uga baxay oo ku soo marayo deegaanada ay ka dhacday dhibaatadu isaga oo soo eegay dadkii ay qasaaruhu ka gaadhay xoolaha iyo beeraha iyo waliba kuwii ay dhimashada dadku soo gaadhay madaxweynaha oo la qaybsanayay diihaalka iyo waliba duruufta dadkaasi soo gaadhay ayaa waxa uu isna ka warbixiyay khasaaraha dhabta ah ee ay markaasi u geysatay duufaanta sagar Somaliland way isu burbanaysaa
Somaliland waxay leedahay saaxiibo badan saaxiibka iyo Norway ku jira markay dhibaato dhacdo ayaa la bartaa Djibouti Carabta waa arkaysan cid ay nagu soo horeysay ay nagu xigtay inoo soo gurmateen yihiin aad iyo aad bay dadku isugu gurmadeen in maanta iyada oo aynu hawsha gurmadka ku jiro oo rabadaan tahay oo dadka wixii aynu wax sunahay noo gurmanayaan in labada Soomaaliyeed dhinacay naga xiga oo mid Djibouti yahay gurmad yar qaybsi noo keenayo ka xagga bari naga xigaana saaka uu weerar inuu soo qaaday dagaalkiina hadda socdo dhimasho badan dhaawac labada dhinac baa jiro oo ah wax bini'aadamada ka baxsan bil rabadaan dad gurmad ku jira in la soo weeraro waxaanu soo sheegaynaa Somaliland horumarkeeda way daafacaysaa hore u soconaysaa Somaliland dagaal uma jeedana oo dawlad jeeda Somaliland gurmadkeedana way wadaysaa dagaalka cadawga way iska daafacaysaa Somaliland waa dabaal degaysaa Somaliland way dabaal degaysaa maalmaha ciidaheeda ah 18 oo kale iyo ciidaha islaamkaaba cadawgana way iska daafacaysaa ilaahay baa awoodda siiyay iyo ciidankeeda birta iskuulada way furaanayaan isbitaalada way korayaan dadku wuu shaqaysanayaa dalkana waa daafacaynaa waxa uu sii watay safarkiisa waxaanu gaadhay deegaanka Caashacado halkaas oo uu kula kulmay bulshada deegaanka ku dhaqan waxaanay ka warameen xaalkoodu sida uu yahay iyo dhibtu inta ay leegtahay ka soo gaadhay duufaanadii deegaanada ku dhuftay waan gaarsiinay dadkii cunto waan gaarsiinay iyo dawo waan gaarsiinay wax walba heli karina waan soo gaarsiinay inta wixii ka dambeeyay markuu naga yaraa daadadkii waan soo daadgoray dadkii waxaan ku socday degmadii guryaha ilaa naga dambeeyay daadku galay halka daad baa ka galay meel halkaas ilaahay baa naga qabtay day ku soo jabi gaadhay dadku ugu wala barakacay in iskoolka ma jaan baxnaa xaafadaha markii daadkii la arkay iyo leedixii kale way soo socdaan haddana ilaahay qudradii ilaahay baa daadkii naga nasilay waxa aqal dudumayna de way dudumeen oo in baa duduntay maxay ahayd xoolahana wax weeyaan ma garatay wax dhabarjaba daba jira laakiin wax baa dhintay madaxweyne waxaan ku leeyahay gobolkan ku soo dhawow gobolkani waa gobol xeeba gobolada kale uu ka duway duruufo badan runtii way yaalaan insha Allah bidmillaahi kariim maadaama dalka dawlad cusub ka dhaltay dadka waxaan u sheegay wax badan loo qaban doono madaxweynaha Somaliland ayaa la hadlay bulshada ku dhaqan deegaanka Caashacado waxa ilaahay mahadiya Somaliland way isku tashatay waana isu hirisaa ka baran joogay kale cadda joogo waa wada gurmad dalku maanta gurmadkina way soo gaarayaan maalintay dhibaato kugu dhacdo nin waliba intuu ku jiro ayaad ogaataa gurmadu waxa inoogu horeeyay Djibouti waa inta isjiradii waxa inoogu xigay imaaraadka carabta oo halkaa ka soo duulo diyaaradii u horeysay ma labaadii keenay tii u horeysay tii Djibouti bahayd saaxiibo badan oo kala soo socdana waa leeyahay dad hore u maraya oo nolosha raadsanaya dad shaqo iyo horumar iyo tabaruc u jeeda baynu nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminaya waxay gaadheen deegaanka Logaya si ay xuquuqaal ugu noqdaan bulshada la tiicaysa xaaladii ay ka dhaxleen duufaanadii ku dhuftay deegaanada ee saameeyay bulshada deegaanka ku dhaqan barasaabka gobolka Awdal iyo waxgaradka deegaanka ayaa iska dawmaray sida deegaanadu ay duufaanadu dhibaatada u soo gaarsiiyeen iyo gurmadka ay xukuumaddu soo gaarsiisay laakiin magaalada wararka madaxweyne way burburtay jiingadii buu kala wada tagay birtii dheerada teenadu way dhacday meesha ugu farsamada xun ee dadkuna ugu dhimashada badan yahay ee beerihiina dhamaadeen macal caradii uu la tagay waxa weeye meesha la yaado gargaara waana noo soo gurbateen aad iyo aadna waad u mahadsantihiin waa mid maxaan ku oraa weligiin aan xasuusanayno gurmadkaad noo soo gurmateen iyo raashinka la keenayo iyo diyaaradaha maalin kasta imanaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay gurmad xoogan ka galayaan sidii bulshada wax loogu qaban lahaa iyadoo wada jir loogu gurmanayo waxaanu saameynaa dhulku inuu gegay oo la soo mari karo way soo mari karaan gaadiidka yareer wali gawaarida waa ku culays gurmadka maanta Somaliland waxaan ogahay law yacada ilaa baran inay gurmad ku wada jirto oo qoys kaliya tahay Somaliland oo isu wada maqanaysa oo maanta soo wadeegaysa dhibaatada ka dhacday meel uu joogaba dhibaatada ka dhacday maanta la soo wadeegaya haddii ilaahay yiraahdo waynu isu soo gurmanaynaa gurmadkuna wuu soo bilaabmi doonaa halkan darata markii la marayay waxaa naloo sheegay qoys 12 qof oo inay yar ka haray inankii baan dooninaa haddii reerkoodii baxay qarankiisa baa jooga madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxay sii wateen socdaalkooda dhinaca cirka iyagoo tagay deegaanka gargaara bari oo kamid ahayd goobihii duufaanadu ay khasaaraha soo gaarsiiyeen
waxaana dhibta meesha ka dhacday iyo inta ay leegtahay sharaxay madaxda deegaanka iyo bulshada deegaanka ku dhaqan dadka halka ku dhintay gargaar ahaan waa 22 qof 4 qof un baana wali la duugin oo la laayahay meel alla meel ay jaan iyo cidhib dhigeen intii kale waa la duugay dhibaatada ugu weyn dhacday waxa weeyaan dhul aan weligeed lagu aqoon inuu daad maro iyo daadadka mareen wadankii wax laga beeran jiray oo dooxyada ka fogaa iyo intuu dusha ka maray dhamaantood dadkan imika daadadku qaaday ilaa 9 qof baa beeraleydii madaxweynaha iyagaan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dawladda imaaraadka dawladda Djibouti intaasoo hogaaminayay oo la wada hadlay oo wada keenay madaxweynaha iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa reer awdal soo saab maaha Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland oo la dareena shacbigiisa ayaa ballan qaaday inuu si mug leh xukuumaddiisa uga qayb qaadanayso gurmadka lagu samata bixinayo bulshada duufaanadu ay halakeeyeen waad ka tacseerina wixii dhintay dada ilaahay ha u naxariisto wixii xoolo ah iyo dadba samriye baan Allah naga siiyo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa halkoodii inuu caawil khayr qaba dad iyo duuba inuu soo bedelo ilaahay isaga gacan weyn meel wax ka bixinaya lama yaqaan inuu garamayno ilaahay isaga umadiisa u naxariista xagga uu ka dilaa xagga uu ka dhaqaa xagga uu ka nimceeyaa xagga waxba ka dhaca ilaahay waxaan u rajaynaynaa intaan dhibaataya Allah nagu kaafirane nimcadaad baan rabnaa gacantaada qowbeed dhacdooyinka kale ee iyaguna waaweynaa ee sanadkan lagu xasuusan doono waxaa ka mid ahaa ee Somaliland ka dhacay heshiiskii kama dambaysta ahaa ee laga gaadhay colaadii ceelaf weyn waxay ahayd tijaabo weyn oo hortaalay xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo oo colaada deegaanka ceelaf weyn ay ahayd mid muddo dheer soo jirtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo arintaasi ku galay tala waayeelnimo iyo waliba ka fiirsasho gundheer ayaa waxa uu ugu dambeyn si loo xaliyo colaadaasi uu u saaray guddi u badan culimada waaweyn ee haldoorka Somaliland iyadoo oo sidoo kalena ay guddigaasi xubna ka ahaayeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Somaliland haddaba 1 August sanadkan 2018 ayaa si kama dambaysa ah colaadaasi loo soo afmeeray ceelaf weyn kulan balaaran oo isla deegaanka ceelaf weyn lagu qabtay ayaa la isku soo horfadhiisiyay ardayadii ay dhibaatadu dhex martay iyo sidoo kale ardayada kale ee xirayaasha u ah sidoo kale waxaa munaasabada gunaanadka ah joogay xukuumadda Somaliland halkaasina guddidii loo xil saaray xalinta oo muddo dheer u fadhiday arintaasi darteed deegaanka ceelaf weyn ayaa ka jeediyay qodobo wax lagaga qabanayo colaadaasi si aanay mar dambe colaadaasi u soo noqonin haddaba ka hor intii aan lagu dhawaaqin qodobada xalinta colaada ceelaf weyn ee ay guddidaasi halkaasi muddada dheer u joogeen ayaa waxaa hadallo hordhaca oo dardaaran ah iyo waliba hoga tusaaleyn ah halkaasi ka jeediyay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar oo ah gudoomiyaha guddida xalinta colaada ceelaf weyn iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ah sheekh caan ah oo reer Somaliland isla markaana xubin ka ahaa guddidaasi ayaa halkaasi kala hadlay dadkaasi iyaga oo la dardaarmay kuna dhiirigeliyay in nabadda iyo wada noolaanshaha la dhowro waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalaha iyo u garnaqaynay oo arintoodii soo gabagabowday inay go'aankaasi ku qancaan waa go'aan ummadi ay gaadhay ma aha wax inta iyaduna aan gaadhnay maahay ummadda kalena guda iyo dibadba weyna la gaadhin xilligana guddida xalinta colaada ceelaf weyn ayaa mar kale u jooga deegaanadaasi dhamaystirka xaalka heshiiskii kama dambaysta ahaa ee la dhex dhigay labadii ardaa ee walaalaha ahaa ugu dambeynna 28 November guddida doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa ku dhawaaqay inaanay suuragal ahayn qabsoomida doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanada ee dalka inay qabsoomaan waqtigii loo mudeeyay oo ahaa 29 bisha March ee sanadka inagu soo socda waxa ay guddigu sheegeen jiritaanka dhowr qodob oo suuragelin waayay in doorashooyinkaasi isku sidkana ay waqtigii loogu talagalay qabsoomaan komishinku wuxuu cadeynayaa inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoomeyn waqtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan 29 March 2019 warqadda cayimaadda ah eenu ku cayimayno
sharciyan waxaan u gudbinaynaa maanta oo bishu 28 madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland waxa kale oo ka hadlay caqabadaha ka hor yimi komishanka doorashooyinka Somaliland. markii uu komishanka doorashooyinka qaranku uu diyaariyay dhammaan qorshe hawleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxa ka hor yimi caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba. kow saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba. laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udub dhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. saddex diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. afar xisbiga wadani oo ku dhawaaqay bishii March 2018 inuu joojiyay dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay isaga iyo komishanka doorashooyinka qaranka taasoo caqabad ku noqotay shaqadii komishanka doorashooyinka. shan wada xaajoodkii u dhaxeeyay saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin. lix miisaaniyaddii lagu geliyay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socotaa oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin. waxa kale oo sheegay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland in ay komishanka doorashooyinku ay bilaabayaan dib u furistii diiwaangelinta muwaadinka Somaliland. komishanku wuxuu diyaariyay dhammaan agabyadii oo u diyaar ah diiwaangelinta ama dib u diiwaangelinta codbixiyaasha lagu sameeyay. wuxuu kor u qaadis iyo tayeyn ku sameeyay qalabkii inoo yaalay kaasoo u diyaar ah inuu diiwaangelintii codbixiyaasha dib loo furo oo u qaato. ugu dambeyntina waxa uu sheegay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland inay diyaariyeen xeerkii lagu gali lahaa doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka Somaliland. diyaarinta xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta kuwaasoo ay ku sameeyeen wax ka bedel kaabis isku dhafid 4 xeer oo 4 nuqul ku kala yaalay. ilaahayna inagu guuliyay inaynu ka dhigno hal nuqul. geesta kalena isaga oo dhawaaqaasi ka soo baxay guddida doorashooyinka tixraacaya ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu dadaal u galay sidii loo socodin lahaa wada shaqayntii asxaabta qaranka iyo guddida doorashooyinka si looga howlgalo qabsoomidda doorashooyinkaasi. waxaana madaxtooyada ka dhacay kulamo kala duwan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland garwadeen ka ahaa.